laascaanood saaki xiisad ayaa ka taagan galbeedka magaalada ayaa la soo warinaya in rasaas badan ay ka dhacayso iyadoo rasaasta u dhaxayso ciidamada Somaliland ay ku sugan aaga duleedka magaaladaasi ee Gooja Cadde saldhigga military ugu weyn iyo ciidamada deegaanka ACC wax khasaare lama soo sheegay rasaasta kooban ee duleedka magaalada laascaanood saaki laga maqlayay dadka deegaanka farkuturiska ku haray laascaanood ayaa sheegay in maqlin dhawaq rasaas culus oo 12 subaxnimo laakiin waxa la sheegay in todobadii saaki ama halkii saac ay saaki iskeeda rasaasta u istaagtay magaalada laascaanood ayaa xasiloonaa tan iyo toddobaadii ugu dambeeyay inkastoo ciidamada Somaliland ay kuwa deegaanka ACC ay isku hor fadhiyaan duleedka magaalada dhinaca kale magaalada laascaanood saacada ka dambaysa waxa soo gaaraya ciidamada beelad u abaabulan kuwaas oo ka imaanaya deegaanada Puntland ciidamo badan oo ka yimid magaalooyinka hoostaga gobolka Bari ayaa shalay soo gaaray magaalada laascaanood ciidamadaas oo la sheegay in habeelad u abaabulan yihiin ila wareedaya sheegaya in ciidamada Puntland oo habeelad loo abaabulay hadda ay joogaan magaalada laascaanood oo si dadban dagaalka kaga qayb qaadanaya dhinaca kale madaxweyne Muuse Biixi ayaa shuruud adag ku xiray dhexdhexaadinta qaramada midoobay ee Itoobiya ay damacsan tahay inay ka sameyso qadiyada magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool madaxweynaha Somaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa mar kale ka hadlay xiisada dagaal ee ka taagan laascaanood ee gobolka Sool taas oo u dhaxaysa ciidamada dawladda ee maamulkiisa iyo kuwa deegaanka ACC madaxweyne Muuse Biixi ayaa shaaca ka qaaday sida kaliya ay xukuumaddiisa ku aqbali karto waa waanta ay bilaabi doonaan qaramada midoobay ee Itoobiya xiriira qadiyada laascaanood taas uu sheegay in marka hore lagu saleeyo in Somaliland dhexdeeda dhibaato ka jirta laga caawinayo sidaasna ay ku bilaaban karto xalinta rabshadaha ka aloosan laascaanood sida muuqata madaxweyne Muuse Biixi wuxuu iska diiday in la yiraahdo ciidamada deegaanka ACC ama ciidamo ka soo horjeeda maamulkiisa laakiin wuxuu sheegay in dhexdhexaadintu in loo dhigi doono dhibaato ama mushkilad ka dhex jirta maamulka Somaliland oo dhexdiisa laga xalinayo xalintaas oo ay ka caawinayaan qaramada midoobay Itoobiya sidoo dalbaday madaxweyne Muuse Biixi in wada hadallada habkaas ay noqdaan cid nabad nagala shaqeynaysa dawlad ama urur wanaageena doonaya daacadna ka waa la shaqeynaynaa waana ogolaanaynaa waxaase marka hore ah in laga bilaabo in Somaliland dhexdeeda dhibaatada ka jirta laga caawinayo ayuu yiri madaxweyne Muuse Biixi intaas marka la eego madaxweyne Muuse Biixi wuxuu gaashaanka u daruurayaa in la yiraahdo ciidamo hubeysan oo deegaanka ACC ah oo ka soo horjeeda Somaliland iyo waliba sidoo kale ciidanka maamulkaas oo wada hadallo la dhaxdhigaya sidoo kale waxa la sheegay in xukuumaddiisa aysan aqbali karin in dagaalka laascaanood ay qayb ka noqdaan dhinacyo kale oo abaabulan habeelad ahaan u abaabulaya rabshadaha laascaanood ka jira waxaan ogolnahay dadka qaarkii ama qaybo kamid ah Soomaalida oo ay Puntland qayb ka tahay fargelin toos ah ku sameysay dagaalka gobolkaasi Sool ka soconaya oo habeelad ahaan hadda u muuqata in Puntland u soo fargelisay ayuu yiri madaxweyne Muuse Biixi wuxuu intaasi kadib sheegay inuu diyaar u yahay sidii garaadada ula kulmi lahaa ula hadli lahaa tabashaduna loo xalin lahaa loona qancin lahaa si xalkan gobolkaas uu noqdo mid gacanta Somaliland soo gala dawladda Itoobiya iyo qaramada midoobay ayaa hadda wada qorshe ay rabaan inay ku dhexdhexaadiyaan maamulka Somaliland iyo ismada dhaqanka ACC ayaa hore u dalbaday hal shardi wuxuu ahaa shardigaasi in marka hore ciidanka Somaliland guud ahaan laga saaro gobolka Sool markaas wixii ka dambeeyana wixii wada hadallah ay miiska isugu yimaadaan halka madaxweyne Muuse Biixi asna shardi uu ku xiray ee ahaa in wada hadallada laga dhigo mid u dhaxeeya Somaliland dhexdeeda oo aan laga dhigi karin Somaliland iyo koox kale oo hubeysan marka la eego shuruudaha dhinacyada ka imaanaya qaramada midoobay iyo Itoobiya doorka ay qaateen dhexdhexaadinta xalka gobolka Sool ayaa u muuqan kara mid xaaladda ka sii dari karta marka la eego sababtu waxay tahay madaxweyne Muuse Biixi hore ayuu go'aan cad kaga qaatay in ciidankiisa uusan kala bixi doonin gobolka Sool waa qodob ay wataan ismada dhaqanka deegaanka ACC aan ciidanka Somaliland laga saaro ka hor intaysan wada hadallada miiska fadhiisan shardiga madaxweyne Muuse Biixi asna miisku la yimid ayaa ah in wada hadallada laga dhigo mid Somaliland dhexdeeda laga caawinayo mushkiladaha ka jira taas oo ka dhigan in meeshu ka saaray ciidamada hubeysan ee xuduudda leh ee laascaanood ka dagaalamaya ee jabhadda ACC shuruudan cusub ee madaxweyne Muuse Biixi ayaa ku horgudban wada hadallada la rabay inay bilowdaan si xal lagu gaaro xaaladda laascaanood oo 2 bil u muuqato inay wali si la daaladhacayso rabshado bilowday bartamihii bishii Janaayo sanadkan bilowgiisii haddaba saaxiibayaal wararka laascaanood shuruudaha dhinacyadu ay soo bandhigeen wixii ku soo kordhaa wararkeena kale aan ku faahfaahin doonaa hadduu ila raali ka noqdo